السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوو تيكسي تكنولوجي maanta waxaan muuqaalkan idin kula wadaagi doonaa insha allahu tacaala qaabka adiga oo gurigaaga xafiiskaaga ama kalaaskaaga jooga aad isaga soo diiwaangelin karto workshopiska kala duwan ee ku diyaarsan tixi kabacdi maalinta aad isdiiwaangeliso kalaasku markay bilaabayaanna aad soo xaadiri karto haddaba si aad qaabka fudud iminkaba isugu diiwaangelin karto marka koowaad ama stepka koowaad waxaad samaynaysaa waxaad soo furanaysaa browserka aad hadba adeegsanayso kabacdi bartan waxaad ku qori doontaa tixi.org intaa marka aad ku qorto waxa kuu soo bixi doona website-ka aad kugu quruxda badan ayaaba kuu soo bixi doona ee loogu talagalay kaliya in workshopiska wixii macluumaad ku saabsan bartan lagu soo faahfaahiyo horta marka koowaad si aad isu diiwaangeliso waxaad u baahan tahay inaad login tiraahdo oo aad magaranaysaa Gmail ku samaysato ama Facebook si aad midda u samayso sign in baad leedahay kabacdi haddii aad Facebook doonayso ama haddii aad Google doonayso labadan batan midka aad rabto ayaabaad ku dhufanaysaa tusaalahan Google baan doonayaa sign in with Google baan idhi markaan sign in with Google idhaahdo hadba inta Gmail ay ugu jirtay bartan ku xidhan tahay anima kana ku jira kaliya kabacdi soo kaliya aan dooranayaa sigoo kaliya marka aan doortay sidaad arkayso hadda Gmail-kayga profile-kii saaraa ayaaba bartan iga soo muuqda waxaana la igu xidhay Gmail-kayga haddaba haddaad hoos soo degto bartan waxaa kaaga muuqan doona workshopiska hadda diyaara hadba workshopka markaa diyaara haddii kale waxaad ku dhufan kartaa get started kabacdi markaa isaga toos kuu keenaya hadda waxaa inoo diyaara React.js workshop si aad isu diiwaangeliso click linkigeeda click marka aad siiso waxa ay ku keeni doontaa ama kuu soo furmaya qaybtan cusub markaad halkan timaado waxaad arki kartaa workshopka magaciisa halka sare say inooga muuqata halkan hoose haddaad eegto waxyaalaha aad ku dhiganayso waxyaalaha lagaaga baahan yahay si aad u dhigato magaranaysa workshopkan halkan ay ku qoran tahay description yani haddii wixii faahfaahin aad uga baahato aad halkan ka heli karayso haddii targetka studentskana halkan aad ka heli karayso marka haddaad qaybtan timaadaan waxa ku qoran markaa buttonka yar ama qaybta yar gaarka halkan waxa ku qoran iminka enroll now haddaad muuqaal si faahfaahinaya doonaysona halkan aad ku dhufan doontaa macalinka dhigayaana waa ka halkan inooga soo muuqdo bes inagoo information ka haysana eeba waxaan odhanaa enroll now markaan taabanno waxay noo soo furmay panelkan cusub saad arkayso halkan waxa ku qoran USD halkan hoose cash bartan waxa loogu talagalay inaad gelin karayso number qaybtan kale waa Somaliland shilling halka waxa loogu talagalay inaad number gelin karto shaqada guud ahaan cash-ku ay qabanayso waxa weeye inaad numberkaaga geliso kabacdina aad timaado xafiiska si aad u bixiso lacagta halkan hooseyada waxa ku qoran yani waa e-dahabti oo USD iyo shilling bale halkan waxaad gelin kartaa lambarka aad lacagta ka dirayso kabacdi markaad lambarka u dhamaystirto kaliya waxa taaban doontaa oo pay toos halkaas lacagtaada aad ku bixin karaysaa halkan haddaba halkan kale cashta hadaynu ku soo noqono halkaas lambarkaagu mad gelinaysa saynu markii hore sheegnay marka imika waxaan haysanaa lambar baynu gelinay haddii aan register idhaahdo imika way noo dhanta dhan waxaa laynagu yidhi halka happy learning imika halkan buttonkiina uu kaa qaadmay waxaad ka mid tahay ardayda isdiiwaangelisay isla workshopka aad iyo aad baad ugu mahadsantahay daawashada muuqaalkan wixii faahfaahin insha allah waad nagala soo xiriiri doontaa lambarada iyo xawaanada shaashada kaaga muuqda mahadsanid